Assalaamu calaykum. Dadka dunida ku nool way ku kala duwan yihiin qaab muuqaaleedkooda. Kuwa waxaa jira dhaadheer, kuwa gaagaaban oo dunida dadka ku nool, kuwa kale waxay uga duwan yihiin. Laakiin si guud ahaan, waxaanu nahay bini'aadam oo isku qaab ayuu Alle noo abuuray. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbi doonaa dad si saa'id ah inooga duwan, sida naagta dunida ugu ciddiyaha dheer, ninka ugu carabka dheer, iyo kuwa kale. Haddii ay tahay markii kugu horreysay soo booqato channelkan, fadlan daawac calaamadda subscribe-ta si aysan kuu dhaafin muuqaalada ka soo burqanaya channelka Burqad. Lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Nick Stopper wuxuu ku nool yahay gobolka California ee waddanka Mareykanka. Caadi markii loo fiiriyo, wuxuu u muuqdaa nin qurxoon, laakiin markii afkiisa uu kala furo, wuxuu leeyahay carab sayid u dheer. Cabirka carabkiisuna waa 10 sentimitir. Wax dhib ahna kuma hayo, wuuna ku faanaa dhererka cabirkiisa maadaama uu yahay dunida ninka ugu carabka dheer. Haddaad u malaynaysid inay cagaaga waaweyn yihiin ama aad taqaano qof saa'id u caga waaweyn, bal fiiri ninkan. Ibrahim Taqullah wuxuu ka soo jeedaa waddanka Morocco. Waa ninka leh cagta ugu dheer dunida, jirka intiisa kalena uma yaryara, oo waa nin dherer ahaanta u baxay. Ninkan ma helo kaba le'eg oo uu xirto, kabaha uu isticmaalana si qaas ayaa loogu sameeyaa. Dumarka intooda badan waxay ku riyoodaan inay yeeshaan lugo dhaadheer. Gabadha ugu lugaha dheer dunida sanadkii 2009 ayaa waxay noqotay Svetlana Pankrotova, oo ah gabar Raashiyaan ah. Dhererka lugaheeda ayaa waxay gaarayaan 132 sentimitir. Balse sanadkii 2017 ayaa waxaa rikoodhka ka jebiyay gabar kale oo isla Raashiyaan ah, taasoo magaceeda la dhaho Ekaterina Lizina, taasoo hadda ah gabadha ugu lugaha dheer dunida. Cabirka lugaheeda ayaa 132.8 sentimitir. Gabadhan ayaa ah gabadha koowaad ee dunida ugu lugaha dheer, taasoo lagu xusay buugga lagu qoro dhacdooyinka ugu layaabka badan dunida ee World Guinness Record. Dhowaan ayaa waxaa YouTube ka soo muuqday gabar kale oo dhehaysa waxaas oo dhan anaa ka lugaha dheer. Gabadhan waxay jirtaa 16 sano. Dhererka lugaheeda ayaa waxay gaarayaan gabadhan 134.6 sentimitir, walow aan looga yeerin buugga dhacdooyinka adduunka lagu qoro ee World Guinness Record. Badanaa cidiyaha faraaga waxaa jirta asbuuciiba mar, laakiinse Lear Adlon waxay u muuqataa inay si saa'id ah u jecleyd cidiyaheeda, iyadoo ka dhigtay kuwo aad u dhaadheer. Dhererka cidiyaheeda ayaa waxay gaarayeen 9 mitir. Ma rumaysan kartid dabcan. Waxay bilowday inaysan jirin sanadkii 1979, walow ay ka jabeen cidiyaheedii aadka u jecleyd shil gaari awgeed. Dhacdadaas kadib, Chris Dodges Walton ayaa noqotay qofta ugu cidiyaha dhaadheer dunida, taasoo cidiyaha dhererkeeda ay gaarayaan 7 mitir. Badanaa timaha bini'aadamka way joojiyaan koridda markii ay gaaraan 1 mitir ama 1 mitir iyo bar. Fiidnaameedkan ayaa wuxuu bilaabay inuu joojiyo jiridda timihiisa markuu jiray da'da 31 sano. Hadda waa 68 sano jir. Timihiisa waxay gaarayaan dherer ahaan 7 mitir. Wuxuu dhahay, waxay igu dambeysay inaan jiro markaan jiray da'da 60 sano. Markaan ka hadalno timaha garkana, waxaa ka mid ah dadka ugu timaha dhaadheer dhanka garka. Ninkan wuxuu noolaa bilowgii qarnigii 20aad, waqtigaas oo laga joogay 100 sano. Ilaa haddana lama hayo wax rikoodhka ka jebiya. Ninkan weligiis ma uusan jarin garka timihiisa, wuxuuna iska ahaa nin beeraley ah. Dumarka leh timaha garka ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah Vivienne Willer. Waxay ahayd tan leh timaha ugu waaweyn ee garka dhanka dumarka. Waxay joojisay jaridiisa tan iyo markay jirtay sanadkii 25 sano. Ninkii lahaa timaha ugu dhaadheer ee dhaga ka soo baxa ayaa waxaa lagu qoray buugga lagu qoro dhacdooyinka layaabka dunida ee World Guinness Record. Ninkan waxaa la oran jiray Dhadhakan. Wuxuu ka soo jeedaa dalka Hindiya, kaasoo timaha ka dhashay gudaha dhagtiisa ay gaarayeen 30 sentimitir.
qaybaha wadamada Aasiya waxay leeyihiin dhaqamo la yaab leh. Dumarka ayaa waxay qoorta ku xirtaan biro, sanad walbana bir ayay ku kordhiyaan sidaad muuqaalka uga aragtaan, si ay u yeeshaan surar dhaadheer taasoo ay arkaan inay tahay qurux. Haweeney kasoo jeeda waddanka Myanmar ayaa waxay noqotay haweeneyda ugu qoorta dheer dunida, taasoo leh qoor dhererkeedu la egyahay 40 sentimitir. Muuqaalkeeni intaas ayuu noogu egyahay. Channelka aad daawanaysan waa Burqad Channel. Soo jeedaha barnaamijkana waa anigoo ah Cabdinaasir Cilmi Cabdi. intaan ku kulmi doona muuqaalkan kan xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.